صباح wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada tankiina tooska ah maanta wuxuu dabka ka soo degaya garoonka diyaaradaha ee Garowe oo halkan soo gaaraya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa yimi hadda madaxweynaha ku-xigeenkiisa Axmed Karaas ayaa la socda xubno ka tirsan madaxtooyada iyo saraakiil madaxtooyada ayaa la socda diyaaradda waxaa degaysa wadda hogaamiyaha madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe diyaaraddu waa soo degtay madaxweyne Dani waa yimi dadku safkay ku jiraan waa sugaynaa waxay bilow u tahay wufuudda imanaysa heer federaal iyo heer maamul goboleed diyaaraddan waxay wadaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe waa tahay Dowrani media ayaa toos u daawanaysaan soo teginaysa dhacdo kale oo taariikhi ah soo teginaysa دعوة كلا وتاريخية وهي ديارة وضم مدحوينها Jubbaland أحمد مدوبة أي عادة سو استاكتي madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Karaas ayaa jooga halkan xubno ka tirsan golihii wasiiradii hore ee xukuumaddii madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa iyana jooga halkan dhammaan dadku halkan ayay wada fadhiyaan diyaaraddu waa istaagtay weerayaashu diyaar weeye safkay ku jiraan waxa kaamaro iyo saf laga ordayo waa ujeedaan aad iyo aad soo dhawayntu way socotaa بروتوكولك ayaa la qaadanaya بروتوكولك ayaa la qaatay Jubbaland Axmed Madoobe ayaa hadda soo degaya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani madaxweyne ku-xigeen Axmed Karaas taliyaha ciidamada booliska Puntland Muxyidiin saraakiil madaxtooyo xubno ka tirsan golihii xukuumadda ee hore ee madaxweyne Gaas ayaa dhammaan jooga diyaaraddu hadda way istaagtay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa soo degaya tabinta koowaad ee maanta madaxda heer maamul goboleed heer federaal iyo dhammaan inta ka soo qayb galaysa Dowrani media ayaa daawanaysa waa la socona tabinta maanta waa halkan waa garoonka diyaaradaha ee Garowe oo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu ka soo degayo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani madaxweyne ku-xigeen Axmed Karaas taliyaha ciidamada booliska Puntland General Muxyidiin saraakiil madaxtooyo agaasimaha borotokoolka laamaha amniga maamulka gobolka kan degmada dhammaan waa ay joogaan taariikhdu halkan bay ka bilowmaysaa oo waxa bilaabay wufuudda maanta timinta toosta ah madaxda heer federaal heer Puntland iyo heer maamul goboleed Jubbaland baa bilowday Jubbaland baa ugu horeysay soo degtay Jubbaland baa calaamasaarka bilowday inuu soo degto madaxda heer maamul goboleedada marka laga hadlayo waa yimi madaxweyne Maxamed Islaam Axmed Madoobe waa soo degay madaxweyne Axmed Madoobe waa soo degay Jubbaland baa bilowday madaxdii ugu horeysay maamul goboleedada timaada weeye madaxweyne ugu horeeyay maamul goboleedada yimaada ee salaama madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Dani madaxweyne ku-xigeenkiisa wufuudda heer Jubbaland ka soo saar ayaa noqday
مدوبي حسود ويا مدحينها جبلان حسود ويا مدحينها بونتلان سعيد عبد الله الدني وجين كيسا أحمد فراش تليها عيد مدى بوليس بونتلان جنرال محيدين وزيرة دي هراء حكومة دي عبد الولي قاس سعدية ترواتنا وحلي مالك تستن برلمانك أمباسدر ضيب سياسيين حلي بن حامد ياسين ميرا قدومي هراء دقمة بوساسو ياسين كل كان حسيت دي ريرسان بيه وجوغان حتى تاريخ ويسا جبلان بابلوضي نيجي واكن ياسكا سي وحو سودان ما شاء الله ما شاء الله عاد ما ستين أحد وعي مدحينها بونتلان سعيد عبد الله الدني على صعدة مدحينها جبلان أحمد مدوبي مدحينها كحيجين بونتلان أحمد فراش سراكي سعيد مدى لامها أمريكا لكن تستقبل حكومة دي هراء لما أنا حكومة دي بقرية على نصاركا وهي هي ورياش ورك برلمانك أي شوغان ورياش أي شوغان دبرانك عارف هل كان يا لسوق لي هل كان أنا لا سعطان هل كان كفيري وهي هي وحيسي ورياش جبل ما كون حيس جبل حيس كان ميكروفونك هاي مدحda ay hadda imanaysa oo timi oo fariisanaysa shaqada oo badan darteed دبراني ميديا إلى 10 قف أيها هالك كتبني ما أنت مدحيني وجوه الرجال ما دوي يولين عم مقول هذا كسعودة مدوي سودوي مدحيني سعيد عبد الله الدني رجال كيسة هاي هذا الكم مركب بالوضع يعني دي جودة الدنيا نسيان نوصل عنا دقائق خاصة نسيان نوصل عنا صبري زادها ديار دقورة صدق عينك صبري وحوي حكيها مدحينها جبلان وهي صبري المدوبة هي حكيه وياي وكان تضربني صباح نما يساق يصوعي وإيش جاي يساق على ديار ده هو ده كنت تكس ما يدل مريسا وبدي قروح بدنيت كرم مريسا أرجع وقت كاسان أنا نام صباح لها كنيمي هاي قرر واحدة كما كنت بالوضع يعني تبينا مدحنا أنت كهريسة وما دواني إنه حرجين إن هذا الكاي بلعبان قردو سيان ولا صعنة أنا هيك بروتوكول كاي على بلعبة يعملوا
staafka gaarka ah iyo wiilkan ee madaxweyne deni si aad ayuu u tababaran yahay ujeedaan maamuuska brotocolka iyo sida u socdo inaan jecelnahay inaan ka wada hadalno warbaahinta gadaalaha soo bax markay bilaabato ayaan u tegaynaa marka goor bay bilaamaysaa بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta soo dhaweynay madaxweynaha dowladda Jubbaland madaxweyne Axmed Madoobe waxaan ku faraxsanahay inuu maanta uu nagala soo qayb galay xafladda caleemasaarka ee ku dhici doonto waxaan uga mahadcelinayaa isaga iyo wafdiga ballaarnaa ee la socday sida ay noo soo safreen waxaanu rajaynaynaa haddii ilaahay muddada ay nala joogaan in ay nala wadaagi doonaan farxaddaas ay dadka reer Puntland ay u dabaaldegayaan doorashadii ka dhacday 8 bishaan wixii waroo dambe dib baan u dhiganaynaa hadalkeenu wuxuu ku koobnaa oo soo dhaweyn iyo marxabaysiin aan ku soo dhaweynayno magaalada Garowe caasimadda dowladda Puntland waddan madaxweyne soo dhaweyn بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا استعان على امور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. هذا حرام ما العلم مدحوينها ودورتي وحركيات لما المسؤولين شعب كثير قلت لك قاعد قالوا سؤالين قدرين على عشوائي الموضوع هاي نوصل لمعين ما انت على قالوا يلا أقول حفلتنا على مسار قلبينها وحينا عصب هذا دور أنا لا كلام قلت له عمال مضان واحد بدان لك قطع مركا أنا لك قطع أنا حكينا سي وحلو سيف على إنه عاني سي كالوريك نخل كتير أربع نوفر سنة دق ما قبل إن شاء الله وهي وراء كلام دبا الله على قولنا مدحين والكائن مع الجميع سلوين جميل الحركيين أن يكون عمليين الشعب كده ممكن أيوة كان يأتي ذلك حالة المشكلة كم على يقول بلدين الجنة إن شاء الله أساسا عليكم السلام madaxweynaha Jubbaland madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe weeye oo dabcan sidoo ka hadlay sidoo soo dhaweeyay munaasabada iyo ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha cusub Puntland Saciid Cabdullaahi Dani munaasabadan waxa weeye si weyn ayaa waxa soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Saciid Xiraash oo isagoo munaasabada ka qayb galay iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ayaa iyaduna ka qayb galay taliyaha booliska Puntland oo jeedaan janaal Xidin isagoo munaasabada ayuu ka qayb galay وفود كلا أيام دونتا وسوق بيننا قردو يورركو سيدا يوشي يعني هنا نسوق جانا مدح معمولة يصيدوا كره مدح كسرعة الدورة الفدرالكا وكتير على زيرو يبقى كدوان وفتي حاجة أيام سوقنا بتشد وكا هيه فيديو بوجي أي بوجي كيف كذا هي ما بوجي
وزير يا كل حاجة كلها تاي هيرش وانا كفرش ولا معي صار